iminkana war degdega xaalad cabsi iyo jahwareer ayaa ka taagan magaalada Jigjiga kadib markii ciidamada federaalka ay saaki magaalada qabsadeen haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaasi saaki magaalada qabsatay afakaada Maxamed Axmed ayaa stuudiyaha nala jooga oo ishi ku hayay mahadsanid Faisal Bishaar Aligo run ahaantii magaalada Jigjiga ayaa saaki ku waabarisatay xaalad military iyo saansaan colaadeed waxa ayna military-gu qabsadeen hoolka weyn ee shirarka ee Qaryandoodaan iyo xarunta baarlamaanka wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in la weeraray madaxtooyada dagaal kadib iyo iska caabin kaga timid goobihii ay weerareen qaarkood ciidamada militarigu waxay ka baxeen magaalada Jigjiga garab case waxa degan ciidanka dawladda deegaanka loo yaqaan New Police-ka iyaga oo ku socda meeshii dagaalku ka socday ay iskaga hor yimideen jidka dheer ee garab case iyo u dhaxeeya meeshii ay ku socdeen ciidamada militariga oo dagaalkaas ragna looga dhaawacay ragna looga dilay sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya magaalada Jigjiga ciidamadaas New Police-ka iyo military-gii sii baxay magaalada ka baxay dagaal ayaa dhaxmaray sidoo kale waxa xusid mudan inay jiraan mudaharaado ay dadka shacabka wadaan lagulana beegsanayo kaniisadaha bangiyada iyo dukaamada ganacsiga ee ayna lahayn dadka Soomaalida ama leeyihiin Oromada iyo Ethiopiaanka kale waxa sidoo kale hadlay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda dawladda deegaanka waxayna sheegeen ama ay xaqiijiyeen inuu jiro weerarkaas ka lagu soo qaaday ciidamada federaalka Ethiopia ay ku soo qaadeen iyo inayna ogeyn madaxweynaha dawladda deegaanka Cabdi Maxamed Cumar meel la meel u jiro bismillaahi raxmaani raxiim annagoo kulley shaqadeenu baan ku jirno oo nabad qabno xuduud ilaa Jigjiga oo dhaxdeen dhib jirin maanta markaan toosnay aroortumba makalaakiya noo qabsaday oo zoo wato wax kas wato qori wato infantry iyo uraaladii waxaas dhanna ay la qabsadeen oo dagaalkeen meel jooga baa Jigjiga meel kasta qabsadeen sabab ma garanaynin oo dhibaato jirin higaman kasta sarar annaga u joogno wax kulley sababkan u dhacay aan garanaynin waa nala qabsaday عد مدحتوين كنفتو والو ويراري والو حريريي مدحنا من استوينيا ما غرني تاسا كل انان كل ما حقرها ان غدبان دوني شعبك ينو قادو بس شعبك ينو قادان ساعدن كل وحن سوغناي ما غرني تاسا قاعدين سو جيدين intaasi waxa dheer gaadhi dhalinyarta loo yaqaan heego uu abaabulay Cabdi Maxamed Cumar ayaa iyaga oo ku socda xagga xuduudda ama dhanka Baabili waxa la rugmaday gaari waxaana la sheegay inay ku dhinteen tiradaas dhimashada qaar wararka qaar ayaa sheegay inay gaadhayso 40 qof dhanka kale waxa hadda hadlay mardhow oo aan sii fogeyn madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar waxauna ugu baaqay dadka inay istajiyaan sidoo kale waxa uu tacsiyeeyay dadkii ku dhintay eheladii ay ka baxeen inuu samir yeeman Ilaahay ka siiyo dagaalada saaka dhacay waxa kale oo sidoo ku dhintay kaadoonka shacabka ee saaka dhacay لكن محافظة هاي نبتقلية الإيرانية وحوالي محافظة هانتية iyo aan dadku محافظة isla markaana waxaway maxaafadaha dadkii inta Allah naxariisto inta saadoniga aad bay maasantiin waxa kale oo sidoo kale iyaguna baaq soo diray mucaaradka dawladda deegaanka ama nimanka loo yaqaano dulmidiid diridaba ku shirayay waxa ayna yidhaheen ama ugu baaqeen dadka in ay istajiyaan sidoo kalena ay daayaan rabshadaha iyo weerarka ay la beegsanayaan dadka dariska la ah ee la degan xaaladda Jigjiga ka taagan waxaan u aragnaa inay tahay xaalad uu Cabdi Ilaahay abuuray waana wixii aan ka digaynay inuusan ka tagin shacab iyo dal inuusan ka tagin oo wixii la dhihi jiray ay noqoto ama ku cunay ama ku ciideeyay arrintaana arrin aan wax badan ka digaynay dawladda dhexe aan u sheegnay in badan ay inay maanta soo farigeliyeen waanu ku faraxsanahay haddana dadku wuxuu u sheegayaa in Oromo ay soo weerartay wax jira ma aha arrintaasi waxba kama jiraan Oromo ma aha kacdoonkii aan annaga bilawnay shirka diridaba ka socda oo ay ummadda Soomaaliyeed iskugu timid oo beesha Ciise ay gubasha dhigtay ya muxuu ahay ninkaasi dibay
wixii ka soo baxay oo bayaan ahna waaba kula wadaagi doonaa. laakiin idinku mar haddaad tihiin golihii dhaqanka ee aad idinkuna nimankiina siyaasiyiintii aad la socoteen baaqa aad soo saarteen waa maxay idinkoo xaaladan taaganna isha ku haya? baaqaan soo saarnay wuxuu ka kooban yahay 3 qodob. qodobka koowaad waa in shacabka ay isdejiyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan, dalkooda iyo dadkooda ay ilaashadaan, ummadaha ku dhex nool ay badbaadiyaan, dhaqankii lagu garan jiray ugaasiyada iyo wabarada iyo salaatiinta inay nabadii ay weligood bahanan jireen hantaan, shaqaalaha dowladda noocyadooda kala gidisan oo dhan inay shaqadooda si caadi u wataan, dadka nala deganna in la badbaadiyo, cabdina si nabadgelyo ah inuu u dhigi xilka u waayay haddana wuxuu wajahayaa wuxuu maxkamad iyo cadaalad buu mudan doonaa. xaaladdu imika siday tahay? wararka idin soo gaadhaya ee jigjiga iyo deegaamada ku hareeraysan xaaladooda haatan bal siday tahay noo faahfaahi. jigjiga saakii waxay ku waabariisatay dhiilada aad maqlaysa oo dareenka ah. waxaa loogu sheekeeyey dadkii shacabka ahaa horema idin soo weerarsay ciidamadii federaalka oo iyagana isku hareeray goobihii dowladda hore ilaalinaya dhagax ku bilaabeen heegada iyo liu booliska marka laga dhigay. waxay deelaqaysteen gooba bangiga oromiya uu kamid yahay, kaniisad bay gubeen, dadkii kale Ethiopia Highlandka ka yimid bay ganacsiyadoodii goobahoodii dhibaato u geysteen. laakiin saacadaha hadda aan kula hadlayo wararka waxay ugu soo gaarayaan in arrintu militariga ay faraha ku hayaan, wadankana uu degan yahay, magaalada si guud ay degan tahay, wax dhimasho oo caddayn ma haya. idinku qoladiinan Diridhaba joogta ee odayaasha iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta isugu jirtaaba ma tegaysaan jigjiga oo xaaladan xasilinteeda iyo dejinteeda ma ka qayb qaadanaysaan? goormaase tegaysaan haddaad tegaysaan? baaqaanu soo saarnay wuxuu ahaa in ay dejiyaan kaalinta labaad inay qaataan ciidamada qalabka sida makalaakiyaha Ethiopia militariga iyo booliska federaalka ah. annagu jigjiga waa madashanada suldaanka hadda shirkuu soo xiray, suldaanbadaa soo xiray, ballantanada labaad ku ballansanay waa jigjigo. sidii iyo qaabka aan ku tagi lahayn iyo saacadaan dhaqaaqi lahayn kaliya technical baan sugayna. kaasi wuxuu ahaa Dr. Nuux Sheekh Cabdi Gaafo oo ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay shirkii beelaha Soomaalida ugu soo gabagabooday magaalada Diridhaba oo goordhaweyd khadka telefoonka igu waramayay. sidoo kale waxaa xusid mudan daawadayaal in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ay warar sheegayaan inuu ku sugan yahay xarunta ugu weyn ee New Booliska ee Garab Case oo ku taala duleedka magaalada Jigjiga. dhanka kale wararku waxay sheegayaan sidoo kale magaalada Maqale inay saaka ay ka dhaceen shaqaaqada noocan oo kale ah 40 askari oo Ethiopian ah oo wata 2 diyaaradood in ay ka degeen magaalada Maqala iyaga oo raba inay qabto siyaasi ah oo Tigreega ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega. ninkaasna ayna u suura galin inay qabtaan bal iyagii la qabtay 40kii nin ee diyaaradda watay in 2 diyaaradood watay iyo 2 diyaaradoodba iyagana lagu hayo magaalada Maqale. hagaag daawadayaal wixii ka soo kordha xaaladaasi iyo kolba sida ay isu soo tartana sida ugu habboon ayaan la soo socodsiinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.